xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka ayaa weerar loo geystay xilli ay ka hadlaysay kulan dadweyne ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. sidoo kale xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sida la sheegay waxay ka hadlaysay dadweynaha talaabooyinka adag ee xukuumadda Trump ay ka qaaday socdaalka iyo sidoo kale waaxda amniga gudaha Department of Homeland Security. nin la aqoonsan oo u orday goobta khudbadda ay ka jeedinaysay xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sida la sheegay waxa uu xildhibaanada ku buufiyay wax dareeraha oo aan la garanaynin waxa ay yihiin, iyadoo sidoo kale saraakiisha amniga ee goobta ku sugnaa ay si adag u qabteen una xakameeyeen ninkani. lama sheegin wax dhibaato uu soo gaaray xildhibaanada Ilhaan Cumar. kadib qalalaasaha Ilhaan Cumar ayaa mar kale ku noqotay mimbarka ay hadalka ka jeedinaysay, iyadoo sidoo kale sii wadatay khudbadeeda inkastoo dadka ku dhawaa ay ku booriyeen inay ka baxdo hoolka si loo hubiyo xaaladeeda caafimaad. qof ka mid ah dadka goobta jooga ayaana sidoo kale la maqlayay isagoo sheegaya in dareeruhu uu aad u xumaa. dhanka kale xafiiska xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa bayaan kooban oo soo saaray ku sheegay in ilaalada iyo sidoo kale booliska Minneapolis ay si adag u qabteen qofka weerarka geystay, kaasi oo sida la sheegay hadda ku jira gacanta dowladda. booliska ayaa waxa ay sheegeen in eedeysanaha isla markiiba la xiray, isagoo sidoo kale lagu eedeeyay weerar darajada 3 ah ayna Ilhaan Cumar wax dhaawac ah qabin. kooxda baarista dambiyada ayaana goobta baariyay sida ay sheegtay mid ka mid ah warbaahinada dalkaasi Mareykanka. weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli xildhibaan Ilhaan Cumar ka hor weerarka ay ku baaqday in la kala diro hay'adaha laanta socdaalka iyo sidoo kale la dagaalanka tahriibka ee Mareykanka ee ICE, isla markaana ay iscashisho xogayaha wasaaradda amniga gudaha dalkaasi Mareykanka kadib dilalkii ka dhacay halkaasi. weerarkan ayaana dhacay saacado kadib markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu dhaliilay Ilhaan Cumar xilli uu ka hadlayay munaasabad ka dhacday gobolka Iowa, isagoo sidoo kale hadallo aflagaada ka sheegay dalkii ay ka timid ee Soomaaliya kuna tilmaamay dal burbur ah.